xarunta cisbitaalka magaalada Galkacyo oo ay ka soconayaan howlaha fiiqisa kuwaasi oo ay fulinayaan dhaqaatiirta cisbitaalka indhaha Al-Nuur ee magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa booqasho ku tagay wafdi ka socda wasaaradda caafimaadka ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya oo uu hogaaminayo agaasimaha wasaaradda caafimaadka Dr. Ducaale Maxamed Aadan oo socdaal shaqo ku jooga magaalada Galkacyo wafdiga wasaaradda caafimaadka ee dawladda ku meel gaarka ayaa warbixin ka dhageystay dhaqaatiirta cisbitaalka indhaha Al-Nuur Muqdisho iyagoo magaalada Galkacyo ka fulinaya howlaha indhafiiqista waxaana maamulaha cisbitaalka Al-Nuur Muqdisho ahna gudoomiyaha dhaqaatiirta Soomaaliya Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo u faahfaahiyay wafdiga wasaaradda caafimaadka dawladda ku meel gaarka howlaha indhafiiqista ay ka wadaan cisbitaalka Galkacyo isagoo tilmaamay inay tahay mid mutadawacnimo ah oo si lacag la'aan ah ay ugu sameynayaan bulshada isla mar ahaantaasna qaybo ka mid ah gobolada dalka ay ka soo fuliyeen hawshaan marka waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka ku nool maamulada Puntland maamulka Galmudug gobolada dhexe zoonka shanaad ee maaragtay Soomaalida degta Itoobiya iyo maamulka kale oo Khartoum State intaas oo dadka socda way yimaadeen joogaan kowda bisha May ayuu bilaabatay shaqada tan laba waji ayuu kala baxdaa wajiga hore waxaa la yiraahdaa wajiga baarista ama screening phase wajigaas waxaan u talagalnay inay ka faa'iidaystaan 1800 qof hadda maanta waxaan maraynaa 1968 qof welina ma dhammaan uu socdaa ilaa 2 bilood oo socon doona marka tirada aan u talagalnay ama hay'adaha aan kula ballanay waa la dhaafay laakiin anagu ma joojin shaqada maadaama aan Soomaali nahay tirada imsa 1800 qof aa loogu talagalay ay soo fangareeyeen laakiin hadda maanta waxaa la marayaa 1968 waxaan qiyaasanaa ilaa 3 kun inay gaari doonto أنا واتشنا نقطعنا وحنا رجال إنجليز أبين تسمعين تكلمنا أنا أقول لهم أنا سومالي أنا بتكلم على لغة عقلا لغة تركلي أفر بقول وقف إن السيا مرايدة عارفة هذا أولادي بحال السيا شم بقول الله وقف خلينك وحلا لغة تركلي ستة بقول وقف عم ولا يارا إن كفايستان وحنا برا ستة بقول سدد ولا دافع من دول بقى أنت لغة تركلي تارجت ولا دافع كنت وحنا دول وكعيارة الميديا oo qayb weyn ka qaadato filisay sidoo kale agaasimaha wasaaradda caafimaadka dawladda ku meel gaarka oo isna halkaas ka hadlay ayaa uga mahad celiyay hawshan dhaqaatiirta cisbitaalka Al-Nuur ee magaalada Muqdisho isagoo dhinaca kale tilmaamay inuu ku sii jeedo magaalada Garowe oo ay ka furmayaan shir ay yeelanayaan dhaqaatiirta Soomaaliya kaasi oo looga hadlayo sidii bulshada loo siin lahaa adeeg caafimaad Rawla Maxamed Universal TV Galkacyo